قوارش دول شقيا هدو يها سركال أمني هدو يها سركال شبيلة مسؤول كسر ريا وحو كشقيا ها أوجادو متك كهوسينا وحو كشقيا ها أوجادو طيب نيلي وحي كسو دلين nin aad u shaqeynayo bulshadu jecleen qaraxyada iyo dilalka iyo baabiinta iyo xasuuqa shacabka iyo qaranka ana waa Ismaan Cabdi Faarax ana wax tatal hadda milihi laakiin sarkaal amniga hore uga soo shaqeeyana xilli hore oo aan dhaweyn hadda markii labada sano oo ku dhawaaqay Xasan Sheekh oo laba sano ku afjaraya shabaab ana inuu shibilaan guriga ka soo tagaysan qaranka gal shaqeeyay waliba caawiyay way amnigan aad wax uga aqaanay degmada hadda aan joogno ka dhaxlayno gudoomiyaha degmada oo joogan la shaqeynay aan waliba la taliye amni baan u ahaa isaga aniga xogta aan sidaahay waa mid dhan u soo TV-ga oo hore mid weey waxyaalo aan bulshadu qarankuna ku baraarugsaneen maaragtay dawladdu ku baraarugsaneen dawladdu markii la yiraahdo dawladdu waa shacabka weey dadka weey qarankuna waa shaqaalaha u shaqeeyo weey okay waxaan lagu baraarugsaneen waa in inta badan waxa dhacaa banaanka laga sheego oo liira kor ay ka yimaadeen meelo kore ay ka yimaadeen isku barigeena ma dhaafsana isku bariga la gobolka Banaadir wax dhaafsan maaha dhacdooyinka ha la xiriir amniga bal matalan waxa mucjiso ah oo nasiib xumo ah aniga hadda TV-ga ka hor ilaa 5 clip ayaan ka hadlay anoo dalbanaya madaxda qaranka ugu sareeyda haddana intii aan wataa iyo wax lamida iyo anoo baraarujiyo rabo qaranka ruuxiisa iyo shacabkaba si isaga garabsadaan waxa xanuunka nagu reebay oo aad u faraha badan in muddada naleynayo xasuuqayo wax saxan inuu sameeyay si la saga kaasha laha iyo xogta aan ka helay waa aan baaray arrinkaas wax baaritaan ku sameeyay research ku sameeyay waxaan ogaaday aqoonta amniga oo leeyahay masiibadu meesha aan u maleynayno ama gacanta meeshan ku taagayno inay sabab jirinba waxa ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadir qaybo kamid ah qaraxyada iyo dilalka iyo baabiinta iyo xasuuqa shacabka iyo qaranka ayagoo xasaanad laba ka shaqeeyaan dawladda waxa loo doonanayaa idiga muhiima idikaarka muhiima waxa cadon haya idiga la qaadanaya kabacdina qawaarista loo shaqeynaya wal xasuuqaya dadka xasaanada la leeyahay hay'adaha amniga waa looga dhuumanaya idiga iyo xasaanadaba waxa nasiib xumo ah hay'adaha amnigu waxa ay goobayaan way wardiinayaan mararka gabal ayaga ilaalinaya ayagoo ilaalinaya dadka laynayaan waa waxaan meeshan u imid weey bal matalan hadda hulwadaagan joognaa Soomaa gudoomiyaha degmada jooga Bashiir Cabdi Maxamed Aliila Maxamed Xoosh Aliila Bashiir Cabdi Aliila قوارش دول شقيا أسأل لفتيسا قوارش تا يقول شقيا واحد عضيني أنا عضيني دك متعادن كهيا أو لو ذاكر بالشدة ها لو ذاكر أوكي قف كاني وقوارش دول شقيا وحسهلا ما حبس بالغمرنا يدرك دولة زمان يا محمد اللي يجري يا زمان عضيمه هدي يدك ميتين هيا ولي بكلي ما والشبكة دم shabakadan okay waa meelaha aan ka ogaaday waa wax aan TV-ga la imid waa waxa mudan in la ogeysiyo qaranka bulshada shacabka looga digo waxyaalaha aynkaas halkan isla TV-ga waxaan ka codsanayaa 5 jeerna aan hore u codsaday madaxweynaha dalka u sareeyay iyo ra'iisul wasaarihiisa mid kamida inaan la kulmo maxaa yeelay xog waxaan hayaa 3 sano aan aruurinay halista ii dhimano maxay tahay wax halista oo noo dhimano ma jiraan maxay yeelay 2003 aan isugu xiranna 3 aan isugu xiranna aan xasuuqaya waxaan xasuuqaya ee dhikar qaran kuwa haystaan xasuuqaya oo noo fududeynaya qawaarijta noo fududeynaya qarax buruuf lagu sido oo gudoomiye degmo sido oo xoghaye degmo sido oo taliye qayb degmo sido asasiino loo maleegayo qaranka iyo shacabka bal matalan waxa dhacday waxa cajiib ah oo goobjoog u soo ahaa gudoomiyaha degmada howlwadaaga laba mooto wuxuu saaray ciidan shibila طين لي waxay ku soo dileen
nin aad u shaqeynayo bulshadu jecleed oo tuugada iyo waxaas hay'adaha amniga ka caawin jiray oo mirqmirq la yiraahdo waa soo qaariji kaw maxay ku dileen waa loo diray asaga gudoomiyaha u diray danta oo kala haya cajiibahay qawaariista tiri ninkaas ilaan ka marmara weynay ee la dilo waa xogtahay ayadoo codanaya haddaan caddeyn waayo anaa xabsi ku mudanahay inuu isagu inta degmada ciidanka ka diray ay soo dileen qof mu'adin oo shacab waa la sideen karaa okay waxaas waa raqiis qaraxyada aan ka goobno laga goobo hay'adaha amnigu ay ka goobayaan garaashada iyo meelo qaas iyo kontaroolada waxaad la socotaa in saddex askari ay taagan tahay kii kaamirada kii nabad sugidda kii biliiska ay taagan yihiin meel ka sokayda aqar wax taagan yahaba waxa sida dadka noocaas ee dhikaara lagu sidaa ana rabaa inaan cadeeyo laakiin waa inaan helaa mas'uuliyadda dalka ugu sareysa sababa jira awgeed waxa dhacday haddeer kaliya ma waxaan ka hadlayaa waxaad ila dhagaysataa hal sanaan si ay dhiida waxaan siinaayay rabad ila dhagayso hal sano waxa nasiib xumo ah in cadawgii la siinaayay xogtayda waa nasiib xumo aniga xogtayda ay ku soo laabanaysa waxa nasiib xumo ah in madaxtooyada taliye jananka hadda haysta madaxtooyada jooga oo ninka koobaad ee wardiya securityka FIBda madaxweynaha xasan aadan leela xasan aadan afwan xasan aadan leela xil aan anigu madax u ahaa janankan soo mar oo isaga madax u ahaa anoo taa ka faa'iideysanaya baan waxaan u maray inaan qabta wax noocaas waxa nasiib xumo ah wixii aan u maray oo aan qabanayay inaan qaran ku qaban oo ay dadkii shacabka xasuuqeen waxa nasiib xumo ah inaan madaxeeyaan dhigtay halka madaxeeyaan ku dhigtay halkaas waxa fadhiyay maslax oo waxa fadhiyay wiilka madaxweynuhu dhalay jananka oo baray labada korneyl oo heeganka sare leh illa saraakiil fadhis madaxeeyaan dhigtay markuu baraka bacdiyaan waxaan yiraahdan cadeyn waayo liida laguma layn dadka laguma xasuuqin liida bahalnimaha iyo hilibka dadku iyo cunaan ma dhicin wax dhacay ma ahayn okay waxa nasiib xumo oo hal nasiiba ah in la yiri haddeer aan ka daba imaanayna halka waxaan ku sheegay aaladda ay isticmaalaan maxaa yeelay waxaan lagu baraarugsanayn isticmaalaan oo masiiba ah meeshan ka sheegay sayidka qalaba ku xiraa isticmaalaan qawaariijtu oo ninkaas ku xiraa gudoomiyaha degmada howlada ku xiraa waa system degmada waa ku xiran yahay waa system sidaas aan u sheegano system xiran way oo qawaariijtu adeegsanayso okay waxaan markaa waa dawlad koos nool keligi ma ahan waa balaaran yahay aad u balaaranta okay su'aal bad su'aasha waxa tir amad qatar amni ku gashaa qatarta amni oo ii dhiman maxay qatarta noo dhimano haddaan waxa noocaas waa soomanahay haddaan waxa noocaas ka aamusno oo aan qarino ama ka baqno maxaan anaga dayuusin baan noqonaynaa wax liitaan noqonaynaa waxa aan 33 sano u baaba'sanaana wax noocaas waxaan ku talinayaa amaan cod dheer ku sheegayaa hadduu yahay sarkaal amni iyo hadduu yahay sarkaal shibida mas'uulka ka sareeya wuxuu ka shaqeeyaa ha ogaado midka ka hooseeyana wuxuu ka shaqeeyaa ha ogaado laakiin qaraxyadu waxay maraan eedikaar iyo sharci markii laga reebo wax yar oo loogu tala galay maaragtay in ayagu ku gambadaan cunug yar oo la warsaayo inta gobolka isku agtuuray waxa laga warrabaa markaas uu shuuto warsanayo ama hay'adaha amniga warsaayaan halkaasan soo marnay kuwa la qarinaya halkaan jooga kuwa la qarinaya taliya qaybiya kuwa la qarinaya gudoomiyaala kuwa la qarinaya xogayaala waxa cajiiba gobolka Banaadir qaraxyada ka dhacay ganacsadaha hotel weyn gobolka Banaadir kulaha afliya hoteeladu u xilsaaran ninkaas waa ganacsadaha waa nasiib xumo marka waa ku soo celinaya 10 kilibaan duubay kilibyada aan duubay
ومقلايان maamul galbeed madaxdu shacabkuna waa maqlaa waxa ra'iisul wasaaruhu uga jawaabi laaya ama madaxweynaha qaranka uga jawaabi laaya waa nasiib xumo way xasan qof iyo la hadii aad doonayn mobilkii xogta ku jirta qof iyo codka kugu soo celida maxaa yeelay 3 sano waxaan ugu shaqeeyay shacabka Soomaaliyeed sida ay xaq ay ugu lahaayeen وانا واجب إلهي وأدونصدون آمنسنة قف كستو قانقارة يان لديهم دلك حسن شيخلية أيام مدحوينة يان ساس الله فيريني انت لسكد عفو واحد معارضة ولسكد دايو قفكو حقرتو واجبك دينتو كلها هاي ودلكو كلية هاي وددكو كلية ويات هذا نسكد دين انت هسان كنترين هاي أداها أمنقو ماشا أي كقوبي يان كما جرتو قرنكو ماشي وكقوبي كما جرتو شعبكو وإنه لا شقية هيدها أمريكا كاميرا وإن الله استعمالها والله حرتاه وكنت لنا يا مدى